asalaamu calaykum kusoo dhawaada nasri channel 999 magaalada hargeysa waxaa lagu soo dhaweeyey nin aan u kala garan waayey inuu islaam yahay iyo inuu masiixi yahay marka adeegto hadallada uu ku tiraabayo iyo magaca uu la baxay oo ah magacyada ay la baxaan kiristaanku. Mustafa Maxamed Martin waa magacaaga dadka ugu badan waxay weydiiyaan Martin waa magac gaal xaguu ka keenay Mustafa Martin bal dadka maanta inta u soo gudbay marka hore niyo magacaana la baxay way magacaygu marka hore waa Mustafa Ibrahim R dadkii yaqaanay laakiin magacan Martin ana way soo bixiyay marka last name kayga mise waa first name kayga waa magacaygu okay waxaan ka yaranaysanayaa Mustafa way sida Maxamed looga daalay qof walba Maxamed Cabdi Abdullah Cabdi Xasan Cabdi ayaan si bal wax ka yar bedelo marka anigu xagga magacyada gaalada marka hore waxaan ku faraxsanahay inaan cidina soo dhaweyn marka laga yimaado fanaaniin ay aad tiradoodu kooban tahay oo ay nimcadegan soo qasabtay. horta Mustafa Martin waa kuma Mustafa waa nin lagu bartay barnaamijka Cali Harari oo uu qaabilsanaa daba ka hadalka iyo qosolka arintaasi oo loogu doortay qosolkiisa sida codka dameeraha. Mustafa waxa uu sheegay inuu khamrigu wanaagsan yahay sinaduna aanay dhib lahayn afkiisana wuxuu ka qirtay inuu galay tacadiyo badan oo ay ka mid tahay inuu dhac u geystay dad bani aadama. anigu sina iyo khamri iyo dhac iyo waxaan horta adduunka soo sameeyay ma jiro. sidoo kale Mustafa Martin waa nin ka soo horjeestay qarannimada Soomaaliland. Berito ay sabtida tahay waxa dhacay kulankii u weynaa ee isugu yimaanay kulanka waxa isugu yimaanay 30 qof oo xoogiisa ay ka socdaan awdal laan iyo khaatumo intaba ay ka socdaan marka kaas wuxuu noo dhacayaa berito waxa kale oo iyadana ka soo qayb qaadanaysa dad badan oo Yurub ka socday iyaga laftigooda marka taasina waa tii labaad ama waa facekii labaad ee ugu Google dhigaynay inaanu hordhac maamul sameeyno. marna wuxuu sheegay inuu u taagan yahay xilka madaxweynenimo ee dawladda Soomaaliya marna wuxuu sheegay inuu yahay madaxweynaha dibad wareega ah ee Soomaaliland. wadankayga Jubbaland oo wadankayga Soomaaliya oo wadankayga anigu laakiin niyadda waxaan ku hayay shanta Soomaaliyeedba in la helo ma garat marka meel laba nin ay maartay gacanta ku hayn karayso ma ihi laakiin calo waxa la huba maanta meeshii aan xoogga saaraan siiyo ma garanaysaa taageero inay meel sumcad la wanaag noqonayso ayaa maanta dhaba marka anigu shanta Soomaaliyeed baan madaxweyne u noqdo ayaan jeclaa meel qura hayn karaysa ma jiro wuxuu waa deegaanadeedii waana dalkayga kulanti wacan wanaagsan dadkaana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa studio-heena magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka. sidii daawadayaal aad barnaamijyadii hore iyo wararkaba la socoteen waxa aan hore u sheegnay in Mustafa Maxamed Martin uu sheegay inuu yahay madaxweynaha United Somaliland Front. dowladda xagga ka dhacday xagga maraysa United Somaliland Front aad ku magacaawday dawladdeedu waxay maraysaa meel aad iyo aad u fiican waxa noo qabsamay cala waxyaabo badan ta koowaad ee horta ku sheegay waxa weeyaan anagu markii ugu horeysay abaabulkaygu wuxuu ku wajahnaa xagga international community-ga amba diblomaasiyadda adduunka taa runtii waxaanu ka soo hoynay guulo badan waxaanu sameynay qoraallo badan waxaanu sameynay xiriir joogto ah marka horta runtii waxaan oran karaa halkaas waxaanu ka helay guul aad iyo aad u weyn meelo badan oo la taaban karana waanu barna wuxuu aasaasay urur dawladda Soomaaliland kala dagaalama diblomaasiyadda caalamiga beesha caalamka horta qoraaladaydu inta badan horta waxay ku wajahnayeen wixii la oran jiray Friends of Somaliland haddii aanu ka soo qaadno hay'adihii waaweynaa ee hadday noqoto UK8 hadday noqoto Danishka hadday noqoto Swedishka dhammaan waxaas oo dhan waa la wada xiriirnay runtiina go'aamo badan bay soo saareen oo wararka soo gali doona weegan oo ah inay dhammaan caawimada ay ka caawin jiray Somaliland xaggii caawimooyinka ay dib u eegi doonaan xisaabtan cadna ay ku qaadeen maamulka Somaliland gaar ahaan lacagtii la geliyay xunba weyne xagga biyaha lacagtii Somaliland Development Fund waa guushii ugu weyneed aanu ka soo gaarnay xaggii magaranaysa international community-ga in waxaas oo dhan dib loo eego dibna loo baandeeyo wali hawshaas way socotaa waxa kaloo imika noo maqan oo ergey aanu qornay qoraalo gaara ergeyga qaramada midoobay oo doona arrinta laftigeeda inuu naga qayb qaato inaan noqono special recognition area dawladdu ka magacaabana marka arrimahaas oo dhan runtii waa guul waxa kaloo iyadana la xiriirnay European Commission-ka oo nu gudbinay arrimo badan oo la xiriira United Somaliland Front marka runtii waxaanu sameynay xiriir aad iyo aad u badan guulo badan oo ka gaarnay waana ku faraxsanahay intii yareeyay aan jirnay runtii ninkan gafafkiisu aad iyo aad ay u badan yihiin uu ka galay diinteena Ilaahay inoo soo dejiyay iyo dalkeena Somaliland haddaba
waxaynu intaasi kusoo koobi doonaa muuqaalkii koobnaa aynu kaga hadlaynay Mustafa Martin.